kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana ugu daroon odayaasha beesha ceer iyo taliyaha guutada 15aad qaybta 12aad oo diiday in culimada ahlu sunno loo dhiibo madaxda dowladda federaalka madaxda sare ee dowladdu amriin hogaanka ahlu sunno loo soo qaaday muqdisho ciidamada haram cad oo xabsiga dhigay askar ka tirsanaa oo aflagaado u geystay culimada ahlu sunna Puntland oo xukun ku riday nin kufsaday gabar 9 sano jir ahayd isagoo qaba HIV/AIDS Somaliland iyo Puntland oo madaafiic isku garaacay Puntland oo ka hadashay isdhiibitaanka madaxda ahlu sunno aan u cambaareysay iyo heshiis taariikhi ah oo dhex maray Mareykanka iyo Taliban haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 1 bisha 3 ee sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno dhuusamareeb saraakiil uu hogaaminayo taliyaha guutada 15aad ee militariga Soomaaliya General Mas'uud una badan beesha ceer oo degta dhuusamareeb ayaa xiri inji ka saaray Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir kuwaas oo amnigooda gacanta ku haya iyagoona dejiyay xaafadda Dayax ku taala magaalada dhuusamareeb saraakiishan ayaa wacad ku maray inaysan bixi doonin hogaanka ahlu sunno oo ay danaynayso dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale wararka la helayo waxaa kamid ah inay sheegeen saraakiishan inaysan marna gacantooda ka bixi doonin oo ay naftooda u hori doonaan raggani oo ay damaanad qaadeen Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha guud ee ahlu sunno wal jameeca ayaa waxa aad u danaynaya dowladda dhexe taa oo rabtay in loo soo qaado muqdisho sidoo kale odayaasha beesha ceer oo ay ka soo jeedaan hogaamiyaasha ahlu sunna ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay ku dhawaaqaan go'aan ka dhan ah liibista Macalin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo dowladda federaalka ay dalbatay in loo soo qaado muqdisho odayaashan ayaa shir ku lahaa taliya shalay dhuusamareeb waxaana gabi ahaanba ay diideen in loo dhiibo culimada ahlu sunno deegaanada u soo halgantay dowladda federaalka iyagoona saacadaha soo aadan soo saari doona war saxaafadeed ay arrinta uga hadlayaan dhanka kale waxaa si rasmi ah u dhaqan galay hub wareejintii ahlu sunna kadib dagaalkii soo idlaaday dhuusamareeb in ku dhow 10 gaari oo ah kuwa dagaalka ayuu Sheekh Shaakir ku wareejiyay saraakiisha ciidamada dowladda kuwa oo la geeyay xarunta madaxtooyada Galmudug ee magaalada dhuusamareeb uu ku sugan yahay Axmed Qoorqoor oo dowladda aqoonsan tahay isla markaana askartii inji laga saaray kuwoodii horey u diiwaan gashanaa lagu kala biiriyay xiriyahoodii halka kuwa aan ciidamada ku jirin loo diiwaan geliyay ciidamada gorgor oo Muqdisho laga qaaday iyo kuwa darab ee militariga Soomaaliya madaxda ahlu sunno ayaa sidaan xaqiijinay wali jooga meel aan ka fogeyn xaruntii inji laguna magacaabo xaafadda Dayax halka amnigooda ay ku sugayaan laamaha ammaanka ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa hore u qorsheysay in mas'uuliyiintan ahlu sunno loo qaado muqdisho si looga baaqsado saameyn mar kale ay ka abuuraan deegaanka ayaa arrinta waxaa wali ku guuleysan laadahay dowladda waxaana jira qorshayaal la doonayo in mas'uuliyiintan kuwooda saameynta badan loogu fududeeyo safar ay doonayaan inay ugu baxaan wadamo kale oo ay horey uga haysteen sharciyada ganaansho markaana Puntland maxkamadda sare ee Puntland ayaa xukunka madambeysa ku riday xukuumana lagu magacaabo Mukhtaar Cabdikaafi Xirsi oo ku eedeysan kiis kufsiya xukuumana Mukhtaar oo da'diisu tahay 36 sano jir isla markaana la nooc cudurka HIV/AIDS ayaa lagu helay in 3 bishii Maaj sanadkii 2019 deegaan ka tirsan gobolka Mudug uu kufsi u geystay dhibane Farax Jaamac Farax oo ah gabar markaas da'deeda lagu sheegay 9 sano jir 12 Abriil 2019 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug Puntland ayaa Mukhtaar ku xukuntay dil toogasho iyo inuu bixiyo ganaax lacageed oo gaaraya $5,000 kaas oo ay ku qiimeeyeen magdhowgii bikri jabinta balse maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ayaa xukunkaasi burisay 11 Oktoobar 2019 waxaana ay xukuumada Mukhtaar ku riday 20 sano oo xabsi ah inkastoo aysan waxba ka bedelin ganaaxii lacageed ee lagu xukumay sidoo kale maxkamadda sare ee Puntland oo go'aanka madambeysa ku gaartay kiiska Mukhtaar ayaa si buuxda u ayiday xukunkii maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal oo ahaa 20 sano xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya $5,000 dhanka kale Puntland ayaa cambaareysay weerarkii dowladda ay ku qaaday madaxda sare ee hogaanka ahlu sunno wal jameeca wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Dhamancad ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xoog u sheegatay ahlu sunno wal jameeca isla markaana ay ka xun yihiin in dowladdu burburisay hay'adihii dawliga ahaa ee ka dhisnaa Galmudug
wasiirka arrimaha gudaha Puntland ayaa sheegay in Galmudug lagu leynayo ciidankii loo tababaray inay la dagaalamaan argagixisada. wasiirka ayaa sheegay in arrinta ka taagan dalka iyo nidaamka lagu maamulayo uu Puntland ku dhaliyay in ay iclaamiso shir looga tashanayo aayaha iyo halka loo wada dalka. wasiir Dhabancad ayaa sheegay in dalka aan xoog lagu maamuli karin, haddii xoog wax lagu xalinayo Soomaaliya hore ugu xalin lahayd, oo waad la socotaan in xoog loo adeegsaday Maxamed Siyaad Barre oo dalkan san u burburiyay, ayuu yidhi. ugu dambeyntii wasiirka ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay in howlihii loo igmaday iyo qorshayaashii looga fadhiyay ay meel iska dhigtay, taa beddelkeedana ay ku mashquulshay maamul goboleedyada dalka ka jira. Somaliland iyo Puntland ayaa madaafiic isku weydaarsaday deegaanka Tuqaraq. wararkan ka helina deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool ayaa sheegay in deegaankaasi uu dagaal xooggan ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. dagaalkaasi oo la isku adeegsanayo hubka culus ayaa waxa saacadihii la soo dhaafay ka qarxay deegaanka Tuqaraq ee Sool. ciidamada labada maamul ayaa madaafiic badan isku weydaarsanaya deegaankaasi sida ay noo sheegeen dadka deegaanka, kuwaas oo mararka qaarna maqlaya rasaas goos ah oo labada dhinac ay ridayeen. weli si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi, inkastoo labada dhinac ay isku adeegsadeen hub culus oo sababi kara khasaare badan. dagaalka u dhexeeya Somaliland iyo Puntland ayaa dib u soo kacday xiisadiisu kadib dagaalo dhowr ah oo dhowaan dhex maray, waxaana dagaalkan uu sii horinayaa xiisada colaadeed ee labada maamul. labada maamul ayaa u muuqda kuwa gebi ahaanba iska dhagatiraya baaqiyo nabadeed oo laga soo saaray dagaalada khasaaraha badan ay ka dhasheen isku horimaadka labada dhinac, kuwaas oo ku saleysan gacan ku haynta deegaanada xaduudka. heshiis taariikhi ah ayaa dhex maray Mareykanka iyo kooxda Taliban. Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa kala saxiixday heshiis looga gol leeyahay in jidka lagu xeero nabadda Afghanistan kadib in ka badan 18 sano dagaal ah. Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ayaa isku raacay inay ciidamadooda kala baxaan wadankaasi 14 bilood gudahood haddii jihaadiyiinta ogolaadaan heshiiska. Mike Pompeo, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo hogaamiyaasha Taliban ayaa ka qayb galay xafladda saxiixa oo ka dhacday magaalada Dooxa ee Qatar. wadahadallada u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo Taliban ayaa la filayaa in xooggan dheeraad ah ay ka soo baxaan, sida ku xusan heshiiska lagu saxiixay Dooxa. Taliban waxay kala ogolaadeen inaysan ogolaan doonin Al-Qaacida ama koox kale oo xadjir ah inay ka shaqeeyaan aagga ay ka taliyaan. Mareykanka ayaa weeraray Afghanistan isbuuc kadib weeraradii Sebtembar 2001 ay geysteen kooxda Al-Qaacida ee fadhigoodu yahay Afghanistan. saaxiibayaal meel walba joogtaan waa naga intaa warkii aad nagala socoteen. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada